أولا السلام عليكم أصحابتا qaaliga ah salaanaanta islaamka ayaan igu salaamay wayn ahaantii maskiintii ood igu soo laabatay asxaabta qaaliga ah aad iyo aad ayaa wallaahi nigu xiisay saaid dan asxaabteyda qaaliga ah maanta waxaan wadaa alaabtaniti iyo kotoletiganiti dadka yaqaaniina yaqaano marka isheeg hilib oo waxaa waaye saafi ah waaye asxaabta qaaliga ah marka la socod wanaagsan waxaa kusoo darsanaa wixii caraf ahay wixii dhadhanaan ahay all wixii oo dhan isqabaan aan meesha kusoo koobi karin jumbihii kabsar caleentii filfishii wixii oo dhan xawaajiyaashii all ayaan kusoo wada darsanaa asxaabta qaaliga ah anigoona kala qaadqaadeynin dan asxaabtida qaaliga ah waa maskiintiinii oo yareed marka isheeg oo ayaantaaniti dhub dhahday aan dhahay mashquul awgeed wallaahi aan la maqnaay un maahanay si kaleeto uma maqnaynin teeda kaleet asxaabta qaaliga ah waa iska taqaanin qof isheeg waxbarasho iskaaga jiro saaid iskaaga mashquulaadan anina waaba ka caajisayba youtube-ka inaa fiidiyoyaal soo active gareeyo dan asxaabta qaaliga ah waxaa rajeynaa inaa isheeg dadka hadda igu soo biiri doonaan mise hadda igu soo biiray iyo dadkayga ebel ila joogay all of them inay isheeg gacmo furan ay ugu soo dhaweynayaan waa hal bil ka hor ay ugu dambeysay youtube-ka aan soo fadhiisto marka fideoga u dambeeyana wuxuu ahaaya rajeynaa fideoga oo qolka aan nadiifinayo fadhiga iyo jiifka dan asxaabta qaaliga waxyaabo badan oo isoo wadaa dan hadda inta waxaan ku heystaa isheeg bur yar waxaa kusoo daray cusbo yar iyo filfil iyo waxaa kusoo daraa biyo marka si fiican u qasaa isheeg kotleetigana burkanit in la dhexgeliyo ayuu u baahan yahay 2 xabo beed ayaan heystaa marka waa kusoo dhex jabinayaa marka si fiicanna waan isku qasayaa sidoo kusoo baxana waan isla arki doonaa si fiican iskaaga qasaan adkeenin hana jilcinin dhexdhexaad ka dhig marka waan isla arki doonaa saanigana ka dhigo dan asxaabta qaaliga ah run ahaantii mashquulkana uu iska badan yahay asxaabtida qaaliga ah inikana waxaan rajeynayaa inaa subscribe ii saari doontiin dadka igu cusub dadkaada ka bacdi igu soo imaan doono minasana igu soo biiri doonane inay subscribe-ka ii saari doonaan insha Allah saas rajeynaa dadkayga horena waxaan dhahayaa weligiinane inoo wala jira sida hore noogula jirteen unle noogula jooga asxaabihiina familkiidana u share gareeya insha Allah waxyaabo badanna waan isoo wadaa asxaabtida qaaliga ah inta aana kusoo koobi kareenin fiidiyoyaal badan ayaan isoo wadaa run ahaantii marka waan isla arki doonaa saan kusoo qasay waxaasiiti marka asxaabta qaaliga ah hadalkana inaa dheereeyo uma baahni marka waa kana alaabta waa kana sida siitay kusoo baxday marka si fiican inaa u qastid oo u baahan tahay isheeg burka si fiican u qastid marka asxaabta qaaliga ah waxaan kusoo darsanayaa hilibkii oo wixii igu dhex jireen aan meel soo dhigayay dan asxaabta qaaliga ah hilibka waan kusoo darayaa la socod wanaagsan waa kana hilibka waan kusoo daray birtaawada iyo saliidana waan soo saartay badabka marka waxyar ka bacdi inay kulaataa laga yaabaa dan hadda waa kana birtaawadeena way soo kulaanaysaa saa ujeediinba kuleedayna qatay marka dabkan ha iska dheereenin asxaabteeda qaaliga ah sidaas itaan la socodsiinaa insha Allah dabka ha iska dheereenina dan waa kana hadana waa kusoo shubanayaa asxaabteeda qaaliga ah hilibkii oo burka lahaa ayaan kusoo shubayaa dan asxaabta qaaliga ah sidoo inoogu soo bixi doono wallaahi aad iyo aad ayuu macaan badan yahay dadka oo soo baroobay mise dadka cuneen un ayaa fahmi kara ani run ahaantii aad iyo aad ayaan u jeclahay alaabtaniti teeda kale asxaabta qaaliga ah waxaanay ku cunnay isheeg bariis marka bariis ama baasta labadaba waa ku cuni kartaa laakiinse saaid wuxuu ugu fiican yahay dhanka bariiska marka bariis hadaa ka cuntidaan dhahay asxaabta aad baa ugu helaysiin soo maaha marka sida siita ula socda aad iyo aad ayna ugu heli doontiin asxaabtida qaaliga ah hadal badanne
ما بحشي صام اللي هي جرنو أصحابta qaaliga ah waa kana alaabtu way soo gaduudatay dhinaca kale u gadiyay asxaabta qaaliga ah dhinaca kale markaa u gadiyay soo kusoo baxana waan isla arki doonaa insha Allah asxaabtayda qaaliga waxa kale tani sheegi lahay fiidiyoyaal badan aan soo wadaa marka insha Allah xagga commentigana waxa ay ku reebtiin fikirkiina fiidiyoogan inta kan xigo waxaan igaaga soo dhigi lahay sida barankii baan soo suubiyaa challenge wax un soo dalbaday insha Allah waxa soo dalbateen ininka fikirkiina aad iyo aad muhiim ugu yahay xoogna waa saari doonaa ininka waxa soo gudbisiin nimisa ininka waxa sit inoo soo gudbi marka ay dhahdeen aad iyo aad ayaan xushmey doonaa insha Allah kaas aad iyo aad ayay igu weydii maadaama aad tihiin familkeyga marka inaan xushmeeyo waaye aad waan niga xushmeenayaa ma garateen marka fikradiinana saad muhiim ugu tahay fikirkiina xagga comment inoogu soo dhiibo insha Allah dan asxaabta qaaliga ah waa kana alaabta ku soo wada bixinaya qaybta labaad aan soo gelinaya insha Allah la socod wanaagsan qaybta labaad saa noqoto ayaan isla arkeynaa iyadana dan waa soo wada bixiyay marka qaybta labaad hadda ku soo ridaya asxaabta qaaliga ah waa kana qaybta labaad marka isla sida loo dubaya waxba kama dubno isla nooci oo kale talaba inuu guduudanaya marka asxaabta qaaliga ah waa kaasa asxaabta inagu cusub marka la waxaan ilahayaa gacmo furan inagu soo dhawaado sayd dadka inagu cusub saas ayaan u soo dhaweynaa dadka hore ee gudul joogana waxaan dhahayaa weligiin nolol jooga dadka hore igula joogana waxaan dhahayaa kaleeto familkiina insha Allah u share gareey fiidiyooga si isheeg friendskeena ama familkeena ay ugu soo mid noqdaan sida adiga ugu mid tahay dadka hadda fiidiyoogayga fiirsanaya waxaan dhahayaa insha Allah inagu soo biir familka inta aad ku qurux badan ku soo biir insha Allah waxyaabo badan ka faa'iideysaa marka asxaabta qaaliga ah alaabta ku soo bixinaya wax xirka baahi marka isku soo laabaneena ما شاء الله سان أيو كسو بحي ألابتينا aad ayaynu macaan badan tahay dhanka dhadhamiska ilahana halkan niga fadhiisanay dhahay dan dhadhamiskana ku qorano ma garateen dan asxaabta qaaliga ah waa alaab oo isha aad iyo aad u macaan badan ruuxaantii dadka cunayeen ayaa fahmi karo un aniga aad ayaan u jeclahay dadka kale oo cuneen markiina laabtani oo dhadhamiin hoos ay ugu soo qoraa insha Allah marka asxaabta qaaliga ah waa ka alaabteena sida sida ay noogu soo baxday waa ka saade subscribe kana hanaga hilmaamin asxaabta qaaliga ah gacmo furan inagu soo dhawaada inta nagu cusub inta hore noogu joogtane sidiina inagu joogo waa inoo fiidiyooga xigo bye bye